السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت جانالka yaga ku xiran waan idin salaamaya meel walba aad joogtaan. inta kursooyinka janalka la socotay ee ku saabsanaa course-kii ugu horeeyay aan soo galiyay oo ku saabsanaa digital ads platform internetka intii sida quruxda badan u fahantay aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa ardayda fahantay. waxaan idin leeyahay horay uga sii socda inta kuma eka horeyna u sii doona. dhamaadkii course-ka yaga waxaan balan qaaday in aan soo gelin doono course ku saabsan content management ku saabsan because waa muhiim in aan content management aan ka hadlo. waxa uu muhiim ku yahay waxaan ka soo hadlay digital ads platform-ka waana wax isbarbar socda weeye aanu kala hareynin marnaba. web development-gana uu soo hoosgali doono qaasatan WordPress development-ga uu soo hoosgali doono iyo waxyaabaha kale ee la halmaala ee maxaa la dhahaa content management-ga uu yani maxaa la dhahaa qaybihiisa ah. waxaan ku hormarayaa understand in yani faham guud ah laga qaato ardaydu inay faham guud ah ay ka qaadato waxa la yiraahdo horta content management. يعني بدنا Soomaalidu يعني muxuu ahaa diiradu ma saaraan in ay content management-ga iyo website-yada barnaamijyada ku saabsan ee realka ah muxuu ahaa la jaan qaadaya isbedelada dhacaya maxaa la dhahaa sanadba sanadkii kale isbedelada dhacaya maxaa la dhahaa inay ku soo bandhigaan taasu diirada kuma saaraan. Soomaaliduna waxay taasu muxuu ahaa ay qayb kaga tahay waxyaabaha ay kaga dambeeyaan wadamada caalamka ee tiknoolajiyada horumartay. ma ahan micnuhu inaan anagu sheegano tiknoolajiyad ayaan garanaynaa, ma ahan inaynu sheegano taas ceeb bay nagu tahay because anagu ma soo bandhigno tiknoolajiyadeenu ma soo bandhigno. marka wax soo saar iyo creative ayuu baahan tahay tiknoolajiyada. mawduuca ayaga ku saabsan course-ka wuxuu diirada saarayaa content management-ga ayuu imika diirada saarayaa. anoo ka soo hadlay digital ads platform-ka oo aanu abidba muxuu ahaa aanu ku arkin muxuu ahaa baraha bulshada qof kaga waramaya content management-ga ama kaga waramaya ads platform waxa la yiraahdo ayagoo dadku qaar aynaan cilmi u lahayn dad dhif ah ay cilmi u leeyihiin Soomaaliya joogo xitaa shirkadaha qaar ay Soomaaliya ka shaqeeyo aynaan lahayn ba dad muxuu ahaa digital ads platform internetka publisher iyo advertisers oo ah aynaan lahayn ba qaarkood xitaa marka la tiriyo waxa la naadir ah. marka aad iyo aad muxuu ahaa ayaan u bogaadinayaa in diirada lagu saaro digital ads platform-ka in diirada aad loo saaro waana waxyaabaha badana lacagta laga sameeyo caalamka lacagta laga sameeyo inkastoo wadankanaga uu yani xaalad burbur uu ku jiro aynan saamaxaynin in loo ogolaado muxuu ahaa waxyaabaha kale ee wadamada kale loo ogolaaday because wadanku waxa saaran xayiraad ah in wadanku uu yahay wadan argagixiso uu yahay ayaa saaran. marka looma ogola lacagaha online-ka ah in laga sameeyo looma ogola digital ads platform-ka marka laga hadlo ayadoo yani taas laga doorbidayo mararka qaar oo in dad dibadaha jooga lala xiriiro oo muxuu ahaa laga qaato muxuu ahaa information postal code iyo address wixii ku saabsan kuwaas oo fududeynaya in qofkaasi uu ku xirto muxuu ahaa asoo matalaya in dal noocaas uu joogo Europe asoo jooga ama wadamo kale Soomaaliya aynan ahayn iyo Africa aynan ahayn jooga soo ku matalaya in yani qof uu kaga dalbado inuu siiyo information uu ku caawiyo. marka taas waxa keenay isbedelada marnaba aan Soomaaliya ay ku soo kordhinaynin xagga tiknoolajiyada aysan soo bandhigaynin mar walbaana muxuu ahaa liis argagixiso iyo waxyaabaha kale lagu target gareeyo. marka aad iyo aad baan u bogaadinayaa in aad looga shaqeeyo dhanka digital ads platform-ka shirkadaha ka qayb qaataan shirkadaha Soomaaliya ee ka qayb qaataan digital ads platform-ka sidoo kale koorsooyinna loo qabto dhalinyarada si muxuu ahaa sida hadda course-ka aan bixiyay oo kale qaybtiisa practical ee ay weli dhiman tahay dhalinyarada in ay muxuu ahaa kuwa shaqada aanu haysanin inay u tahay faa'iido inay ka shaqeysan karaan digital ads platform-ka oo lacag weyn laga sameeyo. aniga horaan u soo sharxay imika cashirka iyagu wuxuu ku saabsan yahay course-ka iyagu wuxuu ku saabsan yahay content management ayuu ku saabsan yahay. content management-ga ayaan wax ka baranaynaa.
content managementiga waxaan yani kusoo explore aan ku sameey doonaa understanding ku saabsan CMS ka content management system ka iyo title-ada hoos ku qoran sida aad ka arkaysaan muuqaalka oo ah ugu horeeyo WordPress waa platform kamid ah CMS ka kamid ah content management ka kamid ah muxuu ahaa aad iyo aad loo isticmaalo boqolkiiba boqolba aan isdhaamo boqolkiiba 98 caalamka la isticmaalo waana mid ka kaliya kaalinta koowaad ku jira malaayiin ayaa isticmaasho WordPress ka malaayiin ayaa isticmaalso muxuu ahaa serverka platform serverka WordPress-ka laba waxa soo weheliyo Joomla soo weheliyo platformka Joomlaha soo weheliyo saddex waxa soo weheliyo Drupal-ka soo weheliyo Drupal-ka waxa waaye platform kamid ah platformada content management-ga development WordPress-ka aan dhaho web development-ga iyo best SEO analytics يعني CEO analytics ka CEO waan ka soo waramay hadda ma sii sharaxayo waan ka soo waramay iyo analytics inuu leeyahay Google Analytics inuu leeyahay iyo waxyaabaha lamida ayaa yani muxuu ahaa diiradda lagu saaraa content management-ga muxuu yahay fahanka aad ka haysato adigu content management-gu content management-gu waxa waaye waa in la manage gareeyo content waxa la yiraahdaa yani oogadaas dhexdeeda waxa dhex yaala ayaa la manage gareynaya la maamulaya oogada dhexdeeda waxa dhex yaala yani content wax yani gudaha ah waxa dhex yaala ayaa yani muxuu ahaa la maamulaya ma ahan web portal-ka marka weblog portal panel-ka marka la soo furto ma ahan banaanka ma ahan waa gudihiisa waxa dhex yaala waxa la manage gareynayo iyo futures-ka dhex yaala futures-ka waxa kamid ah plugins-ka kamid ah futures marka maqasho waa plugins-kaas oo ku saamaxaya in ay muxuu ahaa plugins-ku ay kala duwan yihiin waxay ku saamaxayaan inay support gareeyaan website-kaaga muxuu ahaa la feasibility-giisa iyo muxuu ahaa iyo performance-giisa intaba inay muxuu ahaa support gareeyaan badana marka maxaa yani content-ga uu diiradda lagu saaraa marka content-gu badana must include web based publishings yani sida in postiyo la soo daabaco kale web based publishings ka postiyo la soo daabaco kale sida format-kooda postiyada format-kooda in wax laga bedelo kale content management-ga waaye in yani management-ga oo yani plugins-ka management-ga setting-ada iyo wixii lamida marka muxuu ahaa la isku xireeyo management marka la yiraahdo waa setting-ka waxa u dhaxeeya muxuu ahaa shirkadda hay'adda ama shirkadda xayeysiinta bixinaysa muxuu ahaa xayeysiinta shirkadda bixinaysa iyo website-ka management-giisa ayaa la yiraahdaa management inta u dhaxaysa ayaa management-gaas la yiraahdaa management-ga guudna marka waxa waaye kan qaabilsan website-ka oo dhan in maamulkiisa muxuu ahaa uu maamulo kulli arimaha ku saabsan website-ka oo dhan sida muxuu ahaa meediyihiisa sida muxuu ahaa qoraaladiisa sida muxuu ahaa teamskiisa in wax laga bedelo muuqaalkiisa in wax laga bedelo muxuu ahaa hanaanka wax qoristiisa iyo waxyaabaha la soo gelinayo in wax laga bedelo inkastoo dadku ay jecel yihiin waxyaabo xiiso leh management-ga marka waxyaabahaas baa soo hoosgalaya content management-ga sida story editing oo kale isbedbedelada ku imaanaya inaad yani team story editing micnuhu ma ahan dhowr waxyaabood ayaa loo qaadan karaa story editing-ka markaan joogno platform-kan markaan joogno muxuu ahaa CMS-ka markaan joogno waxaa loo qaadan karaa in story editing-ka in yani aad basic publishings-kaaga wax aad ka bedesho iyo labo in yani team aad wax ka bedesho iyo in isla platform ku saabsan CMS-ka kamid ah aad yani story editing aad qoraal yani aad ku tifatirto maxaa lahaa sheeko ama muxuu ahaa qof sheeko yani ka hadlaya waxa kamid ah marka waxa kamid ah free Wikipedia kamid ah oo free platforms-ka oo CMS-ka maxaa lahaa uu soo hoosgalaya
ayaa kamid ah dadka si bilaash ah ay u isticmaali karaan in ay qoraalo iyo taariikh ay soo geliyaan waxa ka version control in yani lala socdo controlka pluginska isbedbedelaya pluginska way isbedelaan yani bil iyo toddobaadyo iyo waxay isku bedbedelaan iyo sanado ay isku bedelaan ayadoo lagu base gareynaya inta milyan ee isticmaalaysa ayadoo la sii qurxinayo performancegiisa ayadoo la sii qurxinayo sidoo kale indexinka kamida in yani wax yani meesha la soo gelin karo waxyaabaha meesha la soo gelinaya in ay yani ay leedahay capacity space storage in ay leedahay sidoo kale waxa kamid ah searching waa tan aan ka soo hadlay waxaan tan ugu soo hadlay waxaan ugu soo hadlay digital ads platform internetka ayaan ugu soo hadlay taasoo ah SEM iyo SEO ga inuu searchingkiisana qayb lixaad ka qaato iyo retrievalku waxa waaye in yani retrieval uu sameeyo wax uu kaydiyo inuu wax uu kaydin karo waana la iibsadaa GPU waa la iibsadaa website-ka inta uu kaydinayo waa wax la iibsado wuxuuna la socdaa marka hostingka aad iibsanaysa ayuu la socdaa marka Niger support separation of content and presentations waxyaabaha uu soo bandhigayo waxyaabaha maxaa lahaa soo muuqanayo ayaa ah contentiga waa kuwa soo muuqanayo markii page kala furto kuwa soo muuqanayo marka management systemskana waxa waaye waa kuwii support gareynayay kalana saarayay maamulka muxuu ahaa waxyaabaha soo muuqanayay maamulkooda kuwii kala saarayay ayaa la yiraahdaa management systems ayaa la yiraahdaa waa kuwa pluginska waa kuwa muxuu ahaa na media waa kuwa systemyada waa kuwa muxuu ahaa way badan yihiin hadba muxuu ahaa systemka waxa yani futures u ah hadba systemka waxa futures ah separationka ku sameynaya management system support ku sameynaya ay maxaa lahay ka tarjumaysaa imika what is CMS and design about CMS ku muxuu yahay imika hadda waan soo sharaxay waxa laga yaabaa inaad yani muxuu ahaa briefly understanding aad qaadatay imika waxaan toos u sii gudagalayaa kooraska qaybta koowaad ee kooraska intan ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan qaybta yadu labaad aan kaga kulmi doono waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan